barnaamijkeena caawa waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. waa barnaamijkii saddexaad. qodobada aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah abaanduulaha ciidamada Mareykanka oo goordhow shir jaraa'id qabtay, arrimo muhiimana ka hadlay. ma waxaa soo dhawaaday waqtigii weerarka? wixii uu yiri ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. Iiraan iyaduna waxay awaamiir cusub ka soo saartay maraakiibta isku dayaysa inay marto Hormuz. xaaladdu halka ay marayso barnaamijka ayaan idinkugu hayaa. qaybaha dambena waxaynu ku soo qaadan doonaa arrin la yaab leh oo ay yuhuudda u weydiisanayso ogolaansho inay ku galaan masaajidka barakaysan ee al-aqsa. dadka yuhuudda ah in loo ogolaado inay halkaa xoog ku galaan. haddaba maxay ka doonayaan masjidka barakaysan ee al-aqsa? sheeko cajiiba oo arrinkaa laga qoray ayaynu iyana barnaamijka ku faahfaahinaynaa. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa idinkugu haynaa. inta aan ku jirno wixii soo kordho warar ahna waan idinla socod. asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnay. waa habeennimo talaada arbaca soo galayso, taariikhduna waa 5 May. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa akhbaaraadka ka soo kordhay arrinta midi isu afaysiga hub urursiga ka socda gobolka bariga dhexe, gaar ahaan marinka Hormuz. abaanduulaha ciidamada Mareykanka ayaa goordhow shir jaraa'id qabtay, arrimo muhiima ayuuna ka hadlay. haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay. telefishinka Al-Jazeera oo warbixin kooban ka diyaariyey hadalka iyo shirka jaraa'id uu qabtay abaanduulaha ayaa wuxuu ku bilaabay ninka la yiraahdo Dan Kin oo abaanduulaha ciidamada Mareykanka inuu sheegay inay Mareykanku diyaar u yihiin inay dib u bilaabaan dagaalka ka dhanka ah Iiraan haddii wuxuu yiri arrinkaasi uu ka yimaado awaamir oo macnaha madaxda hadday amar nagu siiso dagaalka halkaasaan ka bilaabaynaa uu leeyahay. haddaba dhanka kale madaxweynaha ayaa amray ayuu yiri in la bilaabo howlgalka xorriyadda si loo hubiyo in maraakiibtu ay si nabad ah u maraan marinbiyoodka Hormuz. Iiraan waxay jebisay shuruucda caalamiga ee badda, waxaana uu sheegay in ay qaab aan wanaagsanayn kula kacday maraakiibta halkaa maraysa. Iiraan waxay u adeegsanaysaa marinka silsilada sahayda adduunka, hub ahaan ayay u isticmaalaysaa. haddaba toddobaadkii lasoo dhaafay Iiraan waxay si isdaba jooga ugu hanjabtay ayuu yiri in maraakiibta marinka Hormuz maraysa aanay mari karin. Iiraan waxay isku dayday ayuu yiri inay carqaladayso hanaanka isu socodka marinka Hormuz oo ay markaa waxyeelayso dhaqaalaha adduunka. abaanduulaha ciidamada Mareykanka oo shirkii jaraa'id sii wata waxa uu sheegay Iiraan waxa ay 9 jeer rasaas ku furtay ayuu yiri maraakiibta ganacsiga ee maraysa Hormuz tan iyo markii xabad joojinta la gaaray. haddaba wuxuu yiri waxaan diyaar u nahay inaan dib u bilowno dagaalka ka dhanka ah Iiraan haddii amar uu nooga yimaado madaxda sare. waa waqtigii kuwa saamiga ku leh ayuu yiri marinbiyoodka Hormuz ay iyaguna u soo dhaqaaqi lahaayeen si ay Mareykanka gacan uga siiyaan sidii loo furi lahaa halkaas. Iiraan waxay weerartay ayuu yiri ciidamadeena 10 jeer tan iyo markii xabad joojinta la saxeexay. waxaan ku boorinaynaa adduunku inuu tallaabo ka qaado si loo hubiyo xorriyadda marinbiyoodka Hormuz. hayraadda badda ee Iiraan ayaa sii socon doonta, aynu ku hayno dekadaheedana warkiisa ayuu ku soo gabagabeeyay. marka ninkan abaanduulaha ah ee Mareykanka dhowr arrimood oo muhiim ah ayuu ka hadlay sidaad maqlayseen. wuxuu yiri dagaal inaan galno diyaar u nahay. marka waxyaabaha kale laga calaamadeeyay warkiisa waxaa ka mid ah dowladaha wax ku leh Hormuz ha soo dhaqaaqaan uu yiri. Hormuz yaa wax ku leh oo daris la dowladaha khaliijka. marka wuxuu rabaa khaliijka dagaalka inuu soo geliyo. imaaraad iyo maaragtay qatar iyo sacuudi iyo waxa kan iyo ciraaq iyo waa kuwait iyo soo gala dagaalkooda, soo dhaqaaqa. Mareykanka gacan ku siiya in meesha la furo. macnaha marinbiyoodka waxbaa ku leedihiin dowladaha wax ku leh marinbiyoodka oo dariska la ah ha soo galeen uu leeyahay. marka wuxuu soo kala sheegay Iiraan inay rasaas ku furtay 9 mar maraakiibta badda maraysa oo ganacsiga ah. ciidankeenuna 10 jeer ay soo xabadeeyeen uu yiri oo wax nagu soo rideen tan iyo markii xabad joojinta aynu galnay. marka
wararkaas ayuu sii daayay wuxuuna ku soo aadayaa shirkan jaraa'id xilli taag iyo maaragtay cabsi ay ka jirto gobolka oo cid walba ay isdiyaarinayso. barnaamijkan kii ka horreeyay waataan kusoo qaadanay in ciidamada israa'iil ay heegan galeen, dowladduna ay dadka ugu baaqday godadka in loo furo dhulka hoostiisa ah. marka meel walba diyaargarowgaasaa ka socda. kullay waa arki doonaa meelay ku dhammaato sheekadaas. dhanka kale iyaduna iiraan awaamiir cusub ayay waxay ka soo saartay maraakiibta maraysa marinbiyoodka Hormuz. meeshaan anagaa maamulna tiri maraykankuna muxuu leeyahay meeshaan annagaa furayna dariska kaalaya nala fura aan imaano adduunku qaybaha ka qaato. meeshaan annaga noo xirata yidhahdeen. markabkii meeshaa maraya foomam iyo alaabaa loo diraa, wuu soo buuxbuuxinaa, wixii khidmadoo laga rabo tuuraa, emaila usoo dhacay lagu faahfaahinayo meesha uu ka gudbaayo, meesha uu maraayo, meesha uu ka leexanayo, wixii oo dhan macluumaadka markuu helo waa gudbayaa. taarikhdiisii wixiisii uu soo qoraa, markab kasta nambaruu leeyahy, wixiisuu soo gelinaa, asoo meeshiisa jooga wixii dhan loo diraa, dheg wuu soo buuxsanaa, waa gudbaya. ninkii khilaafana jugtaa laga gelaya. haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay sheekadaas, iiraan waxay sheegtay inay soo rogtay qaabab cusub oo lagu maamulayo dhaqdhaqaaqa isu socodka marinbiyoodka Hormuz. Press TV telefishinka la yiraahdo oo Iiraan ay leedahay ayaa wuxuu sheegay Iiraan inay si rasmi ah u shaacisay qaab cusub oo lagu maareynayo isu socodka marinbiyoodka Hormuz, kaasoo markaa tasriix ama ogolaanshiyaha ku siinaya maraakiibta iyadoo email kaliya la isweydaarsanayo. email iyo waxbaa lagu soo dirayaa, meeshaasaa buuxinaysaa, dheg waxaa habaysanaysaa wixii lagaa rabo, shuruudihii aa buuxinaysaa, waa gudbaysaa. xisaabtaada hawada lagu kala jaranaya, lacagtaada waa gudbaysaa. qolooyinka la raadinaya haddaad tahay si kasta haddaa u buuxisid makaa yeelaya systemka, adiga cadow ata ku leeyahay gadaal u dhaco. marka sheekadaas nimanna waxay degsanayaan nidaamkii iyo maamulkii iyo wixii meesha lagu mari lahaa. ninna wuxuu leeyahay xoogan ku furayaa, isniin iyo talaado 2 maalin la mara, wax la furay male. maraykanka booto haya, booto iyo qarraac waa furaynaa, xoogan ku furaynaa 100 diyaaradood, 15 kun oo askari aawi warkooda baysaa, waa haawanaysaa meesha wax jooga la baaro. marka warkaas isaguna wararkii ugu dambeeyay ayuu soo kordhay waaye. haddaba qaybtan kale waxaynu ku eegaynaa war la yaab lahaa ka soo baxay masjidka barakaysan ee al-aqsa. ilaahu masaajidkaaga badbaadi. nimankii yahuudda ah waxay leeyihiin dadka yahuudda ah ee qudus jooga maalintaas ha loo ballaqo masaajidka. oo maxaa loogu ballaqaa? masaajidka ma ayagaa iskale? muslimiin miya? waaba yahuudi, ma kaniisadooda tagaan masaajidka maxay ka rabaan? edeb daradooda fiiri, waxay haddana ku leeyihiin waa ku damaashaadeena. laa xawla walaa quwata. maxaa ugu damaashaadaysaan waaye? 15 May bishan 1967 waa maalinkii Israa'iil ay qabsatay masaajidka barakaysan ee al-Aqsa. waa bishan 15keeda inna loo furo oo aan ku dabaaldegnaa rabnaa. muslimiinta adduunka ayna arkaan masjidkoodii barakaysnaa inaan ku feesteenayno, haysanno, kasoo bilow 67 ilaa hadda annagu aasaas u haysanno. wax muslin oo meesha imaa karoo naga kicin karana uusan jirin. adduunkii oo dhan marka warqadaa la soo saaray, waxaa leeyahay waxaan ha laga qabto dadka, waxaan suuragal maaha. dadkan diintoodii iyo waxoodii kaniisaday haystaan, maa kaniisadoodii tagaan. hadday faysteynayaan ma magaalada qudusta ayagaa haystee banaanbaxyo ku samaystaan. maxay ka rabaan masaajidka? masaajidka waxay ka rabaan muslim meel kasta uu joogo inuu maaragtay uu ka xanaaqayo ogyihin. dhiiggaa lagugu karinaya adiga, maxaa qaadi kartaa lagu leeyahay. marka waa ducaynaynaa, tabar kale ma hayno. ilaahayow masaajidkaaga badbaadiyo ummadaada muslimiinta, adinkuna soo duceeyay. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaa laga qoray. xubno ka tirsan aqalka baarlamanka kiniisadka iyo wasiiro xukuumadda Israa'iil ka tirsan ayaa waxay dalbanayaan in la furo masjidka barakaysan ee al-Aqsa
loona furo dadka yahuudda ah si ay u xusaan sanad guurada markii ay qabsadeen masjidka barakaysan ee al aqsa 13 xildhibaan iyo wasiiro 3 ah oo ka tirsan dowladda Israa'iil ayaa codsi u gudbiyay xukuumadda in 15 May oo ku beegan munaasabada maalinkii ay yahuuddu qabsatay masjidka barakaysan ee al aqsa iyo guud ahaan magaalada Qudus 1967 oo carabta dagaalkoodii ay ku qabsatay in meesha ay ku farxaan oo ay ku dabaaldegaan waa musiibo masaajidka ku dabaaldegaynaa kulay inaan muslimiintii ka adkaanay carabtii ka adkaanay masaajidkoodii haysano 15 May ayaa xusayna macnaha waa maalinkii ay qabsadeen masjidul aqsa 1967 marka hawshaasu waa hawl iyaduna cajiiba waaye waatay qadar xayeysiisa kadib waxaan u gudbaynaa wararkii soo dhacay intaanu barnaamij ku jirnay haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa wararka cusub ee soo kordhay markan waxaynu eegaynaa magaalada Khartoum ayaa maanta diyaarado drone lagu weeraray oo lagu duqeeyay dowladda Suudaan waxay ku eedeysay Ethiopia inay weerarka soo qaaday Masar way cambaaraysay Ethiopia ayaa iyadu hadda war soo saartay war degdeg ah waxay leedahay annagu shaqo kuma lihin wixii ka dhacay halkaas Khartoum caasimadda haddaba maxay Ethiopia loogu eedeynayaa inay halkan soo weerarayso waxay u soo weeraraysaa Ethiopia hore ayay ciidanka Suudaan ugu eedeysay inay koox jabhada oo Tigray ay dhulkeeda ka soo gelisay dhanka Ethiopia oo la soo hubay oo loo maleynay waliba Masar iyo dhulkan iyo hubka laga keenay in halka laga galiyay marka Ethiopia ara ay ka qabto ayay u soo weerartay airportka waxa leeyahay Khartoum haddaba sheekadaas iyaduna way kacsan tahay wixii akhbaarada barnaamijyada dambe ayaanu ku soo qaadan doonaa in kasto Masar ay leedahay waa cambaareynayna weerarka halka ka dhacay haddaba sheekadaas iyaduna halkaas ay ka qasan tahay wararkaas ayaa ugu waaweynaa caawa barnaamijkeennii habeenimo waa naga inta wuxuuna ahaa barnaamijkii saddexaad inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo